بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo sanadka 2014 ee maamulka magaalada Dhagaxbuur qorshaheedu wuxuu ahaa ku saleysan sidii kaabayaasha dhaqaale ee maamulka magaalada wax looga qaban lahaa sidaan wada ogsoonahay magaalada aad bay u koraysaa baahiyaha loo qabo horumarinta asaasiga ama kaabayaasha dhaqaaluhuna waa mid marba ka dambaysa sii kordhaya maadaama oo shacabka ku dhaqan magaalada uu kolba ka dambeeyo uu sii badanayo anagoo baahida ka duulayna waxaan diyaarinay qorshayaal kuwaas oo kaga jawaabayno baahida asaasiga ee shacabka haddii ay wada noqoto haddii ay noqoto xarun caafimaad haddii ay noqoto bilicda haddii ay noqoto bariijyada iyo sidii adeeg hufan ay u heli lahaayeen dadku marka qorshaha anagu guud ahaan waxa weeyaan ku saleysan baahida asaasiga ee shacabka waana kuwo ka jawaabaya baahida ay qabaan dadku haddii ay wada noqoto iyo haddii iskuul noqoto iyo haddii caafimaad noqoto saadaradeed sanadka waxyaalaha ugu muhiimsan ee noo qorshaysnaa inaan qabano waxay ahayd dhamaystirka xafiiska maamulka magaalada Dhagaxbuur oo G+2 ah isla markaana eega almost gabagaba waxyaalaha kale noo qorshaysnaa waxa kamid ah mashaariicda waaweyn guriga martida ee maamulka magaalada Dhagaxbuur oo isaguna G+2 ah waxyaalaha kale qorshaysnaa waxa kamid ah bridge isku xidhaya xaafadda 7 iyo xaafadda 1 isaguna si fiican buu socdaa wadooyin cobblestone oo magaalada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan meelaha adeegyada suuqa bixiya aanu ka fulinayno oo iyaguna almost 4 kilometer ma 5 kilometer iyadana waxyaalaha waxay 2014 qorshaheedii bay kamid ahaayeen isla markaana ay way socdaan mashaariicdii halkan aan fadhinay iyadana waxa weeyaan meelaha iyadana bilicda loogu talagalay haddii Ilaahay yidhaaho si bilicda magaalada wax looga bedelo waxaan oo qorshaysan 500 oo mitir oo eega laamida hareeraheeda inaanu greenery ka sameeyno inaanu dhigno mad garanaysaa dhagaxi marble-ka ahaa inaan ka sameeyno goobo ay dhalinyaradu ku shaqaysato inaan ka sameeyno ayaa iyadana noo qorshaysan wadooyinkii jayga ahaaba iyadana noo qorshaysan oo 10 kilometer wadooyinkii jayga ahaa oo 10 kilometer eegana way socdaan mashaariicdaasi waxyaalaha kale eega mashaariicda socoto waxa kamid ah master plan-ki magaalada oo la balaadinayo oo consultant national level uu qaatay saan wada ogsoonahayna master plan-ku waxa weeyaan horumarka magaalada shayga ugu aasaasan weeyaan master plan-kuna uu socdaa haddii Ilaahay waxaan rajaynaynaa bilan soo socdo inuu dhamaado marka mashaariicaha iskuulaan dhisayna primary schools baan dhisayna health post yaan dhisayna marka waxyaalahaas oo dhan oo lama soo koobi karo sanadka qorshe 2014 run ahaantii laakiin qorshahaas wuxuu ahaa ku guud ahaanba baahida dadka si dhab uga jawaabaya taa waxa barbar socda mashaariic aad u waaweyn oo ay ku baxayso miisaaniyad aad u fara badan oo ay fulinayaan xafiisaha deegaan ah sida xafiiska hawlaha guud sida xafiiska waraabka sida xafiiska caafimaadka mashaariicdaas waxa weeyaan mashaariic kabaya kuwii maamulka magaalada Dhagaxbuur waayo maamulka magaalada Dhagaxbuur miisaaniyadeedu uma suurta gelinaysa in ay fuliso mashaariicaha mega projects ee waaweyn sida balaarinta hospitaalka maamulka magaalada Dhagaxbuur oo si fiican u socda warshadii caanaha socota laamiyo sanadkii hore la sameeyay baa jira oo run ahaantii dhamaaday haddana waxaa jira laami 1 kilometer oo aan shaqadeedu ku jiro dumintii aan bilownay insha Allah haddii Ilaahay yidhaahana loogu talagalay sanadkan inay dhamaato waxaan inta ku darayaa mashruuci biyaha ayaa isaguna hareer socda mashruuca biyuhu feeskiisii hore wuu gabagaboobay oo waxay ahayd in ceelal la helo ceelashii waa la helay biyo ku filan magaalada inay waraabiyaan waa loo helay haddii Ilaahay yidhaaho xukuumadana waxa u qorshaysan bish sanadkan gudihiisa in feeskii labaad ee projectiga la bilaabo isla markaana waxa la rajaynayaa haddii Ilaahay yidhaaho inuu si loo baahnaa soo gabagaboobo warshada caanaha oo kale tusaale ahaan way dhamaatay eega runtii inay shaqo gasho baahday waxa la rajaynayaa dad lagu qiyaasayo ka badan 2,000 qof inay shaqo abuur sameeyso warshada caanuhu
waxaan aaminsanahay inay qaab nololeedka dadka ku nool agagaarka warshada oo dhan hadduu ilaahay yidhaaho inay muxuu ahaa wax far badan ka bedeli doonto. waxaa socda bridge aad u weyn oo 50 mitir dherarkiisu yahay oo xafiiska howlaha guud ay wadaan. eegana hadduu ilaahay yidhaaho laga gabagaboobi doona bish 2 bilood ama 3 bilood gudahood insha Allah. mashaariico noocaas baa jira oo heer deegaan laga fulinayo oo kuwo muxuu ahaa mega projects oo lagu kabayo mashaariicda kale ee maamulka magaalada Dhagaxbuur ayna awoodin in ay miisaaniyadaha fuliyaan. marka hadduu ilaahay yidhaaho waxaan aaminsanahay marka la isku daro qorshaha maamulka magaalada u yaala ee ay rabaan inay wax kaga qabtaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo taakuleynta iyo mashaariicda waaweyn ee ka imanaysa heer deegaan, waxaad moodaa in ay magaalada ka muuqato inay ka muuqato. waayo hadda ka hor laami ma jirin, eega laami baa la marayaa. hosbitaal ma jirin, hosbitaalkiisa hadduu ilaahay yidhaaho wuu dhammaanayaa eega. marka adeegyada noocaasi waxaa weeye run ahaantii adeegyo guud ahaanba kaabayaashii dhaqaale muxuu ahaa magaalada xoojinaya, isla markaana nolosha dadka wax badan hadduu ilaahay yidhaaho ka bedeli doona ayaan aaminsanahay. hadday noqoto dhinaca muxuu ahaa wada shaqaynta, kolley xafiisyadaan bahwadaagtanahay heer deegaan si fiican baan u wada shaqaynaa, gaar ahaan weliba xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha. sanadkan u dambeeyey waxaa weeyaan xafiis kaalin weyn ka qaatay in qorshayaashii magaalooyinku si loo baahnaa ay u fulaan. siyaasadihii horumarinta magaalooyinka ayaa la soo dhaadhiciyey, tababaro kala duwan ayaa hogaaminta la siiyey iyo dadka loogu talagalay inay horumar ka sameeyaan muxuu ahaa magaalooyinka. marka waxaad moodaa automatically in muxuu ahaa xidhiidhkii u dhexeeyey magaalooyinka iyo xafiiska horumarinta magaalooyinku inuu isbedelay. waana mid ka muuqata qorshayaasha magaalooyinku ay samaysteen. waayo qorshayaasha magaalooyinku waa kuwo ku beesgaraysan siyaasadda horumarineed ee ay dawladdu u dejisay. 6 tiir ee horumarinta magaalooyinka 6 tiir ee la yidhaaho. hadda ka hor magaalooyinku siyaasadihii horumarinta magaalooyinka mayna ku salaysnayn. xafiiska howlaha guud eega wuxuuna dhaxalsiiyey ama noo suurtageliyey in waddadii saxda ahayd ay ku soo dhacaan magaalooyinku, in horumarkoodu uu noqdo kuwo ku salaysan koritaanka magaalada iyo siyaasadda horumarineed ee magaalada. marka taasi waxay muujinaysaa wada shaqayntanadu muxuu ahaa noocay tahay.